السابع نو بشوفه كان بلافن صح لا كل يجلس سو قرابة جتين معنا والله يا يجلس كل يلا بشوفه ما هي مركو يتوب مركو يقول لك نيروبي كده والله ما أنت ماشي أشوف محسوسة على كيواي يتوب قالوا اللي وقتي قالوا اللي هو شو محسوسين لكن أسا يصهر عن بحر صح لكن هو يراي وحليو بعيلة ده اللي بعيلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدا oo kala daawade hadii muuqaalada aan idin soo gudbinayna ay noqdaan kuwa ku raali galiya isla markaana aad ka hesho fadlan asxaabtaada u sii share garay sidaada oo kale ay kaga helaan isla markaana ay kaga bogtaan wararka alaaba aan idin soo gudbin ogowe filkaagiyo hablaha aynigaagana asaga dhammaantood ada ogo ilwadroon waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur mililixada quruxdiyo inaad sama jeertahay muqaagu waxanaa safar baan u baxayaa sibiq baanu igu galayn sahalna waan ku soo noqon lamana isdoortay laba kala marmi way isdilaabta isugu hayaan baby lofigu ahaw lama jacayl aan kula laaxsho meelaliyo lali sidoo ifogi laliyo lali lulkii qalbigayga waa hilaac mar qura ka soo dhax bidhaamay fanka Soomaaliyeed alfanaan Marwaan Yare heesihii ugu horeeyay ee bilowgii fankiisa uu ku soo baxay waxay noqdeen heesa qabsaday guud ahaan geyiga Soomaaliyeed heesaha Marwaan Yare uu ku soo caan baxay ayaa waxay ahaayeen heesa video official ah muuqaalka oo si qurux badan looga soo duubay jiliinka hanaanka habka uu sameeyo ayaa waxay ahayd mid gabi ahaan baraha bulshada qabsaday guud ahaan geyiga Soomaaliyeed ayaa mar qura waxa isla qabsaday muusiga iyo codka macaan ee alfanaan Marwaan Yare حور العين تجندا يا حبيبي جاي حسوسي قريبت باتي قال انت ذي حد ذات كذا صاي خديك صندوق مركبه حشا wax ka baro nolosha gaarka ah ee alfanaan Marwaan Yare waxaan idin soo gudbin doonaa taariikh ku saabsan nolosha Marwaan Yare oo dhameystiran xagee buu ku dhashay magaciisa oo saddexan goorma ayuu fanka ku soo biiray heestiisii ugu horeysay alfanaan Marwaan Yare goorma ayuu soo qaaday daawade waxaan ku soo gudbin doonaa dukumeenti dhameystiran oo ku saabsan isla markaana ka sheekeynaya nolosha alfanaan Marwaan Yare magaciisa oo saddexan waa Marwaan Yaxye Maxamed Cadow waxa uu ku dhashay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir badi dadka reer Yaaqshiid ayaa aad u garanayo alfanaan Marwaan Yare waa kan alfanaan Marwaan Yare oo marka kan ka hadlaya taariikh nololeedkiisii halkii uu ku dhashay magaciisa oo saddexan iyo yaraantiisii halka uu ku soo barbaaray أنا وحالي لها مروان يحيى محمد عبدو مقالة مدحدة عاصمة الدولة مقدشو قارعها ياقشيد قارعها ياقشيد أقول شيء dadkii yaqaan baa yaqaan fanaanka ayaa heesihiisu waxa ay soo shaac baxeen sanadihii 2016 2017 kuwa oo u badnaa muuqaalo isla markaana aad u qabsaday guud ahaan geyiga Soomaaliyeed xasuusihii gaarka ah ee bilowgii soo ifbixitaanka fanka alfanaan Marwaan Yare ayaa waxa qayb ka ahaa in guri iyo gaari ay ka wada shidneed muusigada iyo codka alfanaan Marwaan Yare marka laga tago soo ifbixitaankii bilowgii heesihiisa muuqaalka u badnaa ee 2016 2017 alfanaan Marwaan Yare ayaa marka kan ka hadlayo markiisii ugu horeysay ee uu isku dayo in uu heeso iyo bilowgiisii fanka السابع نو بشوفه كان بلافن صح
labada kun iyo يدل اسمه قرابة جتين معنا wallaha يا idle isku meel baa joogay ابا هاي markuu Ethiopia markuu igu arkay Nairobi wuxuu dhahay wallahi maalinta meesha aan joogno xasuustaa Ah. halkee waay هاي Ethiopia gadaal iyo celi waqtiga gadaal iyo celi way soo xasuusay هاي laakiin asaa iga soo hor aan baxay صح laakiin waa yaray waxa lagu ciilay dad lagu ciilay alfanaan marwaan yare waxa uu ka mid yahay fanaaniinta aada loogu jecel yahay sannadihii dambe yaa ku soo garab siiyey bilowgii fankiisa inuu heerkan soo gaaro qof weliba oo ku guda jiro bilowga shaqo waxa uu u baahan yahay garab istaag ilaa iyo inta uu ka gaarayo guusha dhabta ah alfanaan marwaan yare ayaa waxa uu ka hadlayaa bilowgiisii faneed dadkii ku soo garab siiyey inta uu ku guda jiray fanka iyo sidaa oo kale markiisii ugu horreysay ee uu isku dayo in uu makarofon ku heeso qofkii ku soo saacideeyey marka kan fanaanka ayaa ka hadlaya arrimahaasi guud ahaan wallahi horta fankiga horta dad badan baa ugu mahadcelinayaa oo lugu ku lahaa صح inta maxaa soo heesayay صح inta wax soo qabanayay inta soo shaqaynayay horta meeshan waxaan aad iyo aad oo la soo koobi karin aan aad ugu mahadcelinayaa walaalkay marna saaxiibkay aan dhihi karaa صح marna wallahi billahi laakiin ila shooyay صح cabdiweli maxamed cabdulrasta ninkaas horta fankayga lambar kooka ah صح oo soo gacan qabtay صح wax walba igu soo dhiirigeliyey صح laakiin ninkii koowaad oo microphone ii dhiibo heesiga wuxuu ahaa asdere asad usmaan asdere أسد داري asad usmaan ha asdere ninka xamar muqdisho joogo ninkaas microphone ii dhiibay anoona weligay microphone bir laga qabta aanan aqaan igu dhahay hays warwaran ninkii igu dhahay ninkaas waaye asigana meeshaan ka salaamayaa laakiin ninkii gacan badan iyo wax moral badan siisiyey wax walba iga siisiyey oo walaalkay cabdiweli maxamed cabdulrasta meeshaan ka salaamaya asiga iyo familkiisaba iyo caruurtiisaba meeshaan ka salaamaya سلام الله دمان تقول سلام من أنا iyo waxaa kaloo igu soo asigana gacan qabtay صح hilmaamsha haddaan qof hilmaamay malaa'igta idin hilmaamta waa idin leeyahay waxaan kaloo meeshaan ka hilmaamayna abwaankeyga marna saaxiibkeyga marna walaalkay cabdirashiid qanciye xidigii sweden meeshaan ka salaamaya asigana gacan buu ka leeyahay fankeyga asigana cabdimudalib sidoo kale asigana naymar walaalkay oo marna garabkeyga ah dadka badan oo igu yaqaanaan dad walaalkay garabkeyga ah asigana sidoo kale fankeyga wuxuu ku leeyahay gacan weyn ku leeyahay يعني جو مرة دبر كذا iyo cabdirasaaq bulqaas aan hilmaamayn fankeyga heestii ugu koowaad aan fan la soo istaago kaamira soo hor istaago صح ninkii siiyey صح waa cabdirasaaq bulqaas abwaane meeshaan ka salaamay adigana goorma ayay soo baxday heestii ugu horreysay ee official video music ah ee uu soo qaado fanaanka marwaan yare muuqaalkii ugu horreeyay ee heestiisii ugu horreysay yaa ku wehelinayay heestaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa koolkooli waxaa wadajir u qaadayay alfanaan marwaan yare iyo fanaanada laki xaaji wacays ereyada iyo laxanka heestaa waxaa lahaa cabdirasaaq bulqaas waana heeskii ugu horreysay ee video ah oo uu ka soo muuqdo fanaanka marwaan yare oo ay ku wehelinaysay fanaanada laki xaaji wacays fanaanka ayaa marka kan ka hadlaya bilowgii heestaas iyo sababihii ay ku timid iyo sida uu ugu soo caanbaxay waxaan qaaday hees la dhahaayo koolkooli كول ها. طبعا هذيك فنانات كلا أصل قادين yes aniga iyo walaashay laki xaaji wacays oo inta ka salaamayo سلام من أنا ما waxay تنام ku nooshahay magaalada london صح waa salaamaya iyada iyo caruurteedaba iyo xaajigeeda shaygeeda aad waa salaamaya ma jiraa marka laga hadlayo dhanka fanka fanaan uu iska dhigdhigo ama uu jeclaan lahaa in sidiisa oo kale uu u hayso alfanaan marwaan yare alfanaan marwaan yare ayaa waxa uu ka hadlayaa fanaanka uu jecel yahay mar weliba inuu iska dhigdhigo cod ahaan ama sidaa oo kale uu taageero fankiisa qofkan taageero aan ku daydo horta fankiisa waa maxamed xasan xuseen lafoole aan halkan ka salaamayo ما شاء الله adeerkay marna adeerkay waaye maasha allah meeshaan aan ka salaamaya marka laga hadlayo dhanka isboortiska ma jirtaa koox uu taageero alfanaan marwaan yare horyaalada kala duwan ee laga cayaara caalamka haa
alfanaan marwaan yare ayaa waxa uu taageeraa kooxda Liverpool waxa uuna qayb ka yahay fanaaniinta taageera kooxda Liverpool waa kan fanaanka oo mar kale ka hadlayo ciyaaraha kooxda uu ka taageero hagaag daawade gun iyo gabagabadii barnaamijkii gaarka ahaa aynu kaga hadlaynay taariikh nololeedka alfanaan marwaan yare ayaan isla soo gaarnay daawade guud ahaanna halkaa aan jeclahay caawa inaan ku soo gabagabeeyo taariikh nololeedkii aynu kaga hadlaynay alfanaan marwaan yare